dhegaystayaal in badan oo inaga mid ah ayaa u haysta buraanburka oo keliya inay dumarku maansada ku leeyihiin. taasina run maaha. maxaa yeelay taariikhda suugaanta soomaalida haddaynu dib ugu laabanno waxaynu heli karaynaa haween dhowra oo qayb weyn ku lahaa gabayga ragga oo keliya aynu u aanayno, sida jamaad sheekh cabdille xasan nuur, xaawo jibriil maxamed ciise iyo suuban harabla xariyan, oo aan doonayo tixaggaa gaaban oo ay ku caanbaxday inaan moogan idinku jalbeebiyo. allaha u naxariistee sida loo badinaayo suuban waxay soo gaadhay hilaada 1930 qarnigii 20aad. waxay u dhaxday cilmi geesood oo ka mid ahaa madaxyaweynta bulshadii degaankiisa. waxay haddana hooyadiis ahayd geeraashihii jeer xidigiisu uu mudug dhab uga ifay ee xasan xoday la oran jiray. goor haddaba ay fii tahay ayaa suuban iyo saygeedu siday u sheekaysanayeen uu warkii ka qalloocday. markaas bay ku tiri hadal uu qaadan kari waayey oo aad uga cadhaysiiyey. suu wax kale ma yeeline gobashiisii intuu duuduubtay ayuu geela xedadiisa meel u ogog leh iska jiibsaday. suuban arrintaasi way la xumaatay. maxaa yeelay waageedii ceeb iyo facshar bay ahayd waa beriga in geeljiraha iyo dumarradu ay ku sheekaystaan xalay in bera dhacday in suuban ay ninkeedii af xumaysay, isna intuu ka umlay uu saaka geela xedadiisa ka soo toosay. allaha u naxariistee sugulla xisi godgod oo ahaa gabyaa sheekadan suuban aad u warin jiray, iyada qudheedana la kulmay, ayaa sheegay inay ku tiri naagtii ninkeedu uu golaha geela seexdo oo markii wax la isweydiiye la ogaado inay iyadu xalay la dirirtay, waxay naagahayagii hore ula mid ahayd ilmo aan aabbihiis la aqoon, naag dhashay oo kale. sababtaas awgeed waxaa suuban ka go'day inaan caawa taasi dhicin, in laba meelood oo kala duwan aan iyada iyo saygeeda waagu ugu kala baryin. markaas bay abxad aqalka u tiil inta furfuratay waxay kala soo baxday mara khayli mandheeri la oran jiray oo la howan jiray, aadna u qurux badnayd. waxay rabtaa inay odaga inta madaxa u saarto wixii ay fashay ay sidaas kaga xaal mariso. dabadeedna maradii iyo tix gabaya oo ay ku raaligelinayso iyada oo ku huluban ayay golihii isa sii taagtay. markaas bay kaga naxsatay islow mood ugaasyada galbeed kuna amuuraale, ereygaan ku idhi khayli baan uga ammaan keenay, afsamaanna waa kuugu daraaye iibna kacigeyso, oo maradii garbaha u saartay. hase ahatee dadaalkeedii kuma ay guulaysan. nin dhab u cadhaysan buu ahaaye jeedal uu gacanta ku haystay intuu u baaciyey ayuu soo eliyey. markaas bay aqalkii ku noqotay oo seexa istiri, il iyo baalse way isa saari weyday. dabadeed intay salmuggii u fadhiisatay ayay isku duwatay dhowr meeliso oo kale, odagiina la dul tagtay. waxay tidhi inaan gamacsanaabuu u fili uunka gurigaahu sida egar maqaar loo gelgelay, guuxu waa anigee waxaan kuugu gaylanahayaa gacalo awgeede nabsi soo gudaan leeyahay haygu gaagixine. markaas buu uma jixin jixina intuu 2 jeer jeedalkii dhabarka kaga jiiday oo abhiyey ku yidhi nahoy dhiiggaaga ha geline hortayda ka dhaqaaq, haddii kale wax xil leh baad ku war heli doontaa. hase ahaatee hadalkiisaas dambe ee canaanta ah dhag uma ay jaraq siine, iyada oo wax kala maagan bay aqalkii isaga noqotay. tabag oodkac ugu jiray ayay dhulka soo dhigatay
xeerana way soo dhowaysatay. oodkicii iyo timir ay ku googoysay ayay weelkii ka buuxsatay. intii ay hawshaas ku jirtayna waxay isku duwanaysay dhowr meelis oo ay odaga ugu dardaarwarinayso. waxay rabtaa inay ku cabsi geliso haddii uu gelliinkeeda ku gacan sayro in maalin maalmaha ka mida uu nafsigu u soo xerayn doono baali boorkaba kacda ah oo degal waa hore laga guuray aan gurigeeda laga aqoon. markaas bay inta xeeradii aleeleysneed hor dhigtay daboolkana uga qaaday waxay ku tidhi, yaan baali goonyaha madow buu laguu gelinay meel guriga kaadkiisa ah oo gubad ka qiiqaabay ay goroya raad marisay oo gacal ka hayruubay af garoofa layskuma rabee taabo gacantayda. cilmigeesood markay u caddaatay caawa inaan suuban u ogolaan doonin in berri foog uu golaha geela ka soo tooso ayuu soo raacay oo aqalkii la yimid. odayadii aanu soo gaarnay markay sheekadan marinayaan waxay ku soo gebagabayn jireen suuban halablaa. waxay ahayd naag naaga ka tagtay, naag raga ayay ahayd. maxay naag raga ugu tilmaamayaan? waxay u quuri lahaayeen iyada oo haweena intixaas oo kale ay tirin karto. waxay u quuri lahaayeen wadaadkeeda oo u carooday inay soo careeceshan karto. waxay liqi kari lahaayeen in dumarka Soomaalida ay suuban oo kale ku jiri karto. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo.